waxaasoo deegaani wuxuu qaabaynaya sidaad wax uga jawaab celin doonto iyo sidaad wax uga jawaab sidaad wax u arki doonto iyo sidaad adu u dhaqmi doonto sidaad qaab nololeedka noloshaadu ay u taaganta ayay ka qayb qaadanayaan haddaba deegaanku siduu u saameeyaa habdhaqankaaga intaynaan jawaabtaa gelin waxaynu ka horraysiinaynaa qofka oo yeesha habdhaqan wanaagsan iyo qofka oo yeesha habdhaqan iyo khuluq iyo edeb xun ama sifo u dhaqmay sifo wax u arko oo liidata labadoodu maxay natiijadoodu kala noqonaysaa natiijada koowaad ee qofka hadduu positive attitude ama habdhaqan iyo aragti wanaagsan yeesho ama falcelin iyo ka jawaabid iyo qaabilid wanaagsan leeyahay wuxuu helayaa qofku ta koowaad noloshiisa uu ku raaxaysan doonaa talabaad wuxuu helayaa korriin shakhsiyadeed shakhsiyadiisu way kori doontaa awood bay yeelan doontaa wuxuu ka kori doonaa saamaynta ay dadka kale keenayaan dhaliilaha dadka kale u soo jeedinayaan niyad jabin maayaan waayo wuxuu leeyahay qofkani awood